marka hore waxaan u baahanahay ninkaas damiirkiisa inaan dilo kadibna isaga ayaa iskiisu dhiba doona marka adiga isdeji waqtigaaga waa gaaraysaa halo isbitaare gulaam qofkii dilay inaa ogaatid soo martid adiga yaa tahay aniga waan aqaanaa qofkii dilay gulaam maxay ka soo hadlaysaa soogal iga soo gaara uri badbaadiya dad ma jooga miya iga soo gaara dad ma jooga miya ninkan inuu oogu isku dayay isagoo weliba askariya maya tani waa baantaada iidaa ii yeerta aniga war aamus dumarka sharaftooda meel ha uga dhicin ma intay ku wacday misra ku dhiileed uu xoogay laakiin tani ninkan oobigaa la geeyo dacwada laga qoro aniga booliiska muxuu ii qabanaya ii sheeg bal ninkan waa in sharafta laga qaadaa oo labiska laga dhigaa laakiin tani arjuni dhegeyso khaladka aad gasho waa in ciqaabtiisa lagu marsiiyaa sababtoo ah adigoo labisan ayaad gabadhan dembi ka gashay makaan laakiin tani aniga dacwad ayaa igu socota waktigan haddii aan gacan qaado danteeda kuma jirto waa inaan caloosha iska xirtaa adiga soo boolis ma tiyaadeer igaraaclo dheer maxaa u hortaaganta arag na garaac kaal adiga soo hortaagana sidii eyoo kale maya caruurteyda mudan garsoore ninkan waxaa la yidhahdaa arjun ekis isbatoore arjun run ahaanta ninkan sharciga siduu doono ayuu u isticmaalayey sababtoo ah waxaa jirta in dad fara badan uu dambila'aan dilay iyagoo waxba ka galabsan waxaa xaqiiqo ah inuu siduu doono sharciga u isticmaalayey weliba taas waxaa sii dheer isagoo wata libiska ciidanka inuu kufsaday gabar masaakiin ah gabadhaasna lagu arkay markhaati caddan intaba loo hayo taasna run ahaantii waa meel ka dhac weyn ninkana waa in laga qabtaa dalka wuu ku dheeray waa nin qariibaa ah mudane gabadha masaakiinta ah ee uu dhib ku geystay waxaa ka soo dacwooday haweenka magaalada degan oo dhan sidaa daraaddeed mudane garsoore waxaan qabaa aniga ninkan in qodobada uu leeyahay uu mudan yahay la marsiiyaa sababtoo ah waa nin aad iyo aad qalad u galay loomana baahnaa waxyaabaha noocan oo kale ah haddii kan oo kale magaalada lagu sii daayo waxaa dhacaysa in dadku ay ku daysadaan ee fadan iga gabagabay ninkan master ajrun maxaad dacwadan ka qabtaa adigana oo raxma ka dhiibanaysaa garsoore aniga ayaa dood qabo dood haddaad qabtid luuqyadan ka qaylin halkaas soo ful garsoore aniga runta haddaan kuu sheego waxaanahay qof jirkeeda ka ganacsato sidaasay tahay magaaladana ujeedid way adag tahay wiil si uu walaashiis ku badbaadiyo laakiin ninkan anigoo weliba jirkeyga ganacsada ayuu sharaftayda badbaadiyey marka garsoore abukaatayaashan hadallada ay ku hadlaayaan ha u fiirsadaan warkooda waan war aan sal iyo raad midna lahayn been ayaad sheegaysaa weligay waa waxay dhinnaa garsoore sideen ku aaminaa qof jirkeed ka ganacsanaysa hadalkeeda tas ayaan la yaabanahay aniga qofkan ma aamini karno runtii waa war aniga jirkayga haddii aan ka ganacsado mihii qof ku dhalatay laakiin adiga waxaa laga yaabaa walaasha inay noqoto hooyada inay noqoto iyo ciddiin oo dhanba yurnaya war iga hamsa adigaba ha isku dayin afkayga inaa xirtid haddii aad sharciga sidaan u qaloocisana ogow sharciga sidaan ayuu u qalooxnaanayaa sharci dambana lama aaminayo garsoore qofka laada maxay ku hadlaysaa war gabadha indhaha ka gelgelin adiga waa ka tegay adiga leewahay adigana tartiib u hadal
marka hadal sheegaysid hadal degan ha aado garsoore waa ku baryaa ha xukumin xukun oo sharciga foolxumo u soo jiiday xeer ilaaliya wiilkan hadda ay leeyihiin gabar ayuu xoog rabay hadda kahor gabadhayda ayuu ii badbaadiyey iyadoo tuugo ay bursanayaan intuu badbaadiyo ayuu gurigayga igu keenay marka xeer ilaaliya sembir qofka daacadda sidaan oo kale ayaa ku dhacda oo loo nafsadaa mar walbo garsoore inta aada adiga go'aan gaarin oo ku baryayaa aniga hooyo ayaan ahay indhahayga fiiri ilinta ka daadanaysa soo runkaaga ma muuqato garsoore wiilkan hooyadii dhasha kumay khasaarin ama fariya garsoore meeshan maaha kaam lagu qaybinaya cambuulo islaanta maxay dhawanaysaa caddayn baa loo baahan yahay caddayn hadday sanayn haga tagto caddayn garsoor anigaa caddayne yo xeer ilaaliya arjun aniga imuusan xoogin laakiinse waxaa dhacday ninkan korneelka inuu lacag isiiyo uu i dhow weliba arjun baxar geli yaa haa arjun waa nin daacada oo askarnimadiisa daacad waa ku baryaa iska sii daa xeer ilaaliya waa ku baryaa dhammaan caddayn iyo markhaati markii maxkamadda la hor keenay maxkamadda sharafta leh waxaa u caddaatay ninkaa la yidhaha arjun wixii uu sameeyhayoo dhan in ay ahaayeen wax sax ah hadalladan barbagandada oo maxkamadda lagu soo saarana waxba inayna ka jirin oo ninkaa sharaftiisa iyo sumcaddiisa in lagu ciyaaro la doonayo haddana maxkamaddu way fasaxday waxay kaloo maxkamaddu ciidanka booliska ay faraysaa ninka la yidhaahdo korneyl coday in ay dabagal lagu sameeyo oo dacwadan lagu soo caddeeyo